waxa uu dhaxeeyaa geeri iyo nolol. Maanta ayuu marayaa maalinta ugu dambaysa ee qaliinka. Qofkan ka hadlaya waa fanaanka dhalinyarada Iidle Yare. Fadlan dhammaantiin aan ugu duceyno bartamaha muuqaalkan. Walaalkeen ayaa maanta maraya qaliinka ugu dambeeya isla markaana kaasi oo u dhaxeeya geeri iyo nolol. Badi qaliinkan ayaa maalmihii dambe lagu waday Iidle in lagu sameeyo, inkastoo maanta ay ku soo aadeen qaliinka saalada la saaro walaalkeen Iidle Yare. Kaas ayaana u dhaxeeya geeri iyo dhimasho, isla markaana waxa uu soo duubo muuqaal intii aan la saarin saalada ka hor. Waxa uu dhaha dhammaan Soomaalida oo dhan iyo dadka Islaamka oo dhan dhammaantood waxaan ka baryaa inay ii soo duceeyaan maadaama aan maanta marayo in aan geeriyoodo ama inaan ka kaco xanuunkan, taasi oo ah burada laga qalayo mid u dhaxayso geeri iyo nolol. Caruurtiisa ayuu u soo dira fariin dheer kuwaasi oo uu sheegay in aabihiis Alle oo la jiray isla markaana uu mari doono qadarta iyo qalinka Alle ugu talagalay. Iidle waa hubaal inuu yahay aabba Soomaaliyeed, waa hubaal inuu yahay mid la jecel yahay, waase mid dadka Soomaalida ay aad u taageeraan, isla markaana waa aabba ka mid ah aabbayaasha korsada caruurta. Iidle ayaa maanta mar qura waxa uu mari doonaa qaliinka ugu dambeeya ee saalada, kaas oo u dhaxeeya geeri iyo nolol. Muddooyinkii ugu dambeeyay Iidle ayaa xanuuno kala duwan la xanuunsanayay, inkastoo maanta ay tahay maalinta uu maraya qaliin dheer kaas oo u dhaxeeyo geeri iyo nolol. Fadlan dhammaantiin aan ugu duceyno bartamaha muuqaalkan oo qabo like saar dad badan si walaalkeen ay ugu caawiyaan ducada maadaama ay u tahay hiil iyo garab. Iidle ayaa fariin dheer u diray caruurtiisa kaasi oo sheegay haddii aan idinka tago in aad ku noolaan doontaan ayuu yiri quluubteyda, maxaa yeelay Allah ayaa dunidani keenay. Maalin ayuu iga wadayaa, maantase waxay ugu beegan tahay maalin aan dareemaya cabsi. Kadib Iidle ayaa waxaa maanta la rajeynayaa in la saaro saalada qaliinka, taas oo u dhaxayso qaliinkiisa isla markaana noqon doonta mid Iidle oo sii noolaada ama Iidle u dhinto xanuunkan. Dhammaantiin walaalkeen waa mid ka mid ah Soomaalida, waana mid ka mid ah dadka dhalinyarada aadka u jecel yihiin. Waa fanaan dhalinyaro aan ugu duceyno bartamaha muuqaalkan. Iidle waa hubaal in quluubta Soomaalida oo dhan aad ugu weyn yahay. Mar qura ayay u kaceen shacabka Soomaalida, mar qura ayay u istaageen, isla markaana xanuunkiisa ay la dareemeen, waxay la qaybsadeen xanuunka. Laakiin maanta Iidle ayaa mar kale nala soo hadlay, isla markaana fariin dheer oo cod dheer waxa uu ku yiri Allah ayaa imarsiin doona meesha aan joogo. Alle ayaan talada saartay, wax kastase qadarka Allah ayay ku dhici karaan. Inaan dunida baaqi ku sii noqdo waa awoodda Alle, inaan dunida ka tagane waa awoodda Alle. Ee dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka Islaamka oo dhan waxaan idinka codsanayaa ayuu yiri inaad igu soo duceysaan si aan ilmahayga baaqi ugu sii noqdo. Sidoo kale caruurtiisa ayaa maanta aad ugu murugsan maadaama aabahood oo marayo nolol u dhaxaysa geeri iyo sidoo kale inuu baaqi sii ahaado nolosha. Inkastoo qaliinka dhaqaatiirta ay sheegeen mid ah in qofkaani uu noolaado ama uu ku dhinto isla qaliinka, laakiin Alle ma dhihin ee waxaa dhaheen dhaqaatiirta oo keliya. Fadlan dhammaantiin aan ugu wada duceyno walaalkeen Iidle Yare. Kaasi waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta dhalinyarada, waxa uu ka mid ahaa kuwa aadka loo jecel yahay Soomaalida, quluubtooda aadka ugu weyn. Walaal Iidle, Allah ayaan kaaga baryaa inaad ka bagsato isla markaana Allah uu kuu fududeeyo qaliinka. Dhammaantiin aan u duceyno. Fadlan walaalkaygu waa ku baryaa haag marin muuqaalkan oo ugu duceey bartamaha muuqaalkan walaalkeen Iidle Yare.